السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين عاد بدي ولا سلام يا ميل كستال الدنيا ذاك شوكتان وولاشين حمدي شكري وآدين سلام يسا ما أنت وحن ربا إن عند الله شير قريو جد مداوادة وآد وناكسن آدنا أتيا وناكسن وحيالا آد وفربضان ماركتي لنك عافمات وقبطي لنك قروح ذبا marka xoogaa dhanka maanta aynu ku dheeraanayna waxa weeyaan dhanka caafimaadka geedkaasi muxuu leeyahay geedka magaciisana maxaa la dhahaa marka aynu bilaabano geedka magaciisa horta geedku waa kana kuwa koobkan igu jira aadan weyna ku jira magaciisa waxaa la yiraahdaa hibiscus flowers maxay u fiican tahay ama ubaxa geedka hibiscus la dhahay muxuu fiican yahay inuu miraha dhanka caafimaadka wuxuu uga fiican yahay horta wuxuu leeyahay waa full antioxidant antioxidant af Soomaali waxa lagu yiraahdo ma garanay waa difaacyada maybaaydan taas weeraynu soo wada raadinaa marka antioxidant horta buu full ka yahay wuxuu kaloo difaacaa waxa blood fat ka la yiraahdo waa sida cholesterolka ama cudurka cholesterolka oo kale blood fat kaasna wuxuu u qaadaa levelkiisa waqti buu ka dhigaa sida blood pressure oo kale blood sugarka wuu lower gareeyaa maasha Allah marka geedkan lama soo koobi karo haddii aan hore ugu sii socono wuxuu kaloo oo hoos u dhigaa isagana waxa la dhaho culayska dadka buurbuuran markay bishahiisa cabaan waxa la ogaaday oo study lagu sameeyay ka badan 474 qof ah in uu dadkaas culayskoodii uu hoos u dhigay dadka sida dadka la dhaho obese-ka dadka maartay buurbuuran markii ay wadeen muddo 12 week ka kooban 12 sitimaan ka kooban waxaa la ogaaday inuu culayskoodii degay waliba culayska ka saaran aaga dhexda iyo maaragtay dhankaas maxaa la dhahaa hibska bawdiyaha inay tahay hibska miskaha dhex aagaas maaragtay culayska dadka ka fuulo oo hilibku aagu isugu soo dhaco weeyaan caloosha dhexda wareega intaas oo dhan maaragtay culayska dadka hilibka ka saaran ayaa waxaa la ogaaday inay jirto hibskas shaaheedi markay cabeen ama juice ha ka samaysteen iyo waxyaalaha cabitaanka marka hadda waxaanu u gudagalaynaa sidii aan uga samayn lahayn Allahumma salli ala Muhammad shaah ayaan idin tusayaa geedku horta ila daawado kaasa geedkan hadda muddo dheer buu qalalsanaa marka arag ahaantiisa waxa weeyaan horta markuu cusub yahay waa binki ayuu yahay maaragtay kalarka ama basaliga ama binki oo kale weeyaan markii uu aad u yara qalalo oo bariyo badan yaalana wuxuu yara isu bedelaa ubixii dee uu daciifaya ma jeedaan wuxuu noqonayaa madow marka ma sha Allah wakaasa marka waxaanu sameynaynaa markasta uu sii qalalana tayadiisu ma xumaato markasta uu sii qalalo wali manaafacaadkiisa uu leeyahay marka waxaanu qaadanaynaa ama malqacadan baa aynu ku qaadnaba si qiyaas ahaan soo malqacad ma aha malqacad iyo nus ayaynu qaadaynaa shaah baynu rabnaa inaynu ka samayno xataa biyaha cabitaankana waa laga samaystaa marka halka waxa ii yaala katalkaygii oo biyo diyaar igu ahaayeen biyo kulul marka waad u jeedaan siduu steaming hot weeyaan qiiqa ka karaya marka waxaad sameynaysaa biyaha kulul ayaad ku shubaysaa hibiscuskii magaceedana waan idinku qorayaa meesha biyuhu way isbedelayaan waxay u ekaanayaan waxay isku bedelayaan gaduud dhadhankiisa wuxuu leeyahay dhadhan aad u macaan oo sida fiinto oo kale laakiin ka yara maxaa la dhahaa sour uu ku jiro laakiin dhanaan baa ku jira dhadhan xoogaa dhanaan ku jiro iyo flavorka waxa fiintooda la dhaho kale baa loo maleeyaa inuu leeyahay dhadhankiisa aad buu u macaan yahay qofkana ma uu cabsi gelinayo ama ma diidayo qofku ma dhibsanayo marka hibiscuska ka faa'iideysta caafimaadka aad bay ugu fiican tahay waliba intan kaliya aan ka hadlay maahe waxay leedahay waxyaale aad buu u fara badan yahay haddaan dhanka beautyga wax yar ku sii wadana oo dhanka beautyga u leexdo maxaa laga sameeyaa waxyaale aad badan baa laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa saliidaha anti agingka oo aad qaaliga u ah oo dadka maaragtay Hollywoodku ay isticmaalaan waxaa laga sameeyaa timaha kareemada la mariyo iyo ama dadka Hindiyaanka maaragtay India joogaana waxay aad ugu isticmaalaan inay ka sameeyaan hair mask timaha ay uga sameeyaan nafaqooyinka timaha la mariyo
intii isagoo budaysan baa waxay sameeyaan intay daqiiq ka dhigaan ayaa timaha la mariyaa marka timaha wuxuu ka ilaaliyaa dandruffka wuxuu ka ilaaliyaa jajabka wuxuu ka ilaaliyaa waxyaalaha infectionka ku dhasha tinta lafteeda ee madaxa aad ayuu lama soo koobi karo intaasaan laakiin kusoo gaabsanaynaa manaafacaadkeeda kalena mar kale haddii loo baahdana biidnillah waynu ka sheekayn doonaa marka ka faa'iidayso baro magaciisa raadina meel kastaa ka heli kartidna isticmaal waa geed ubaxa oo aad u wanaagsan wuuna udgoon yahay caafimaadkana wuu u fiican yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad samaysaan oo kale oon idinka codsanayaa channelkayga subscribe inaad saartaan waa xamdi naturals insha allah xamdi naturals waxay idiin soo gudbin doontaa wax kasta oo aad u fiican oo khibradeeda sida maasha allah iyaduba ay reerkeeda la jeceshahay wax kastoo natural iyo wax kastoo caafimaadka ku saabsan wixii aan ka aqaano ma ahi anigu dhakhtarad inaan ahay balse waxaan wax ka aqaanaa waxyaalaha harbalka isticmaalkooda iyo sida loo isticmaalayo waxyaalaha ay kala qabtaan biidnillah baarik dhankiinana waa anigana waa dadaalka xaggiinana waa ducada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu please like and subscribe thank you so much